adiga rabbiga rasaas ka bareeyay ku raaxayso rinka kaaraha ogaadeen baa dalbatay ilii booliska ka xabxaabi walba dabbaas kaga shubteen waxay la tahay maanta xilliga dhamaan lahaydeen way waxilligii leediya maanta ma wiilasha cabsiga ah reer cali reer guuleed waliba fiq cigaal miyaa sooladooda ku laasheen tahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada warbixin kooban ayaan siin doonaa marka koowaad waxaan ka warbixin doonaa dagaalada ka dhacay dowlad deegaanka ee maanta ay ku dirireen ama weerarka lagu qaaday dowlad deegaanka oo ay ku qaadeen kooxo abadiida oo ka soo horjeeda nabadda iyo xasiloonida kuwaasi oo weerar abaabulay iyo qaabka ay isaga caabiyeen ciidanka liil booliska khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay dhimashada iyo dhaawaca maxaabiista gacanta ilaa hadda lagu hayo arrimahaasi waa faaqidi doonaa qodobka labaad ee barnaamijka ku faaqidi doona waxaa ka mid ah waxaan idinka warbixinayaa Ergaabo iyo xaaladeeda insha Allah taala si sheergareeya meel dheer muuqaalkan gaarsiiya ugu horeyn maanta waxa dhacay dagaal culus oo markaas u dhaxeeya kooxo nabadiida oo markaas nabadda iyo horumarinta ka soo horjeeda dowlad deegaanka kooxaasi oo ku soo dhuuntay dad walaalo ah oo beela ah oo halkaasi wada degan oo maalmahan ay ka dhaxaysay arrimo dhul iyo arrimahaasi oo ay isku hayeen dad muwaadiniin oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida oo maalmahan bay isku hayay deegaan lagu magacaabo Dacwaley oo markaas ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida halkaasi oo ay ku dirirayeen beelo walaalo ah oo halkaasi wada degan oo dad Soomaaliyeed dabcan oo muwaadiniina taasi waxay kala yihiin waa beesha reer Cali reer Guuleed ama jifida waliba hoose waxa la yiraahdaa fiq cigaal baa la yiraahdaa waa reer Isaaq bay ka tirsan waa ogaadeen waa jifi hoose weeye iyo Arab ayaa oo ka tirsan beesha Isaaq ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaan halkaasi isku hayay dhul iyo arrimahaas ay isku hayeen markii dambe waxay sababtay gudoomiyihii halkaasi oo nin reer Isaaq oo halkaasi ay nabadeen u tagay in la dilay oo ay dileen nimankaasi markii dambena dadkii uu ka dhashayna ay ugu aareen 4 ruux oo beesha Arab ka tirsan dagaalkii markaa waa fogaaday maanta ay is abaabuleen kooxo nabadiida ayaa ku hoos dhuuntay oo abaabulay oo argagixis ah waxay weerareen mid ka mid ah checkpointiyada waaweyn ee ciidanka liil boolisku ku leeyahay halkaasi dagaal qaraar baa ka dhacay ciidanka liil boolisku waxay qaadeen tallaabo weyn oo culus maadaama lagu soo duulay dowlad deegaanka kooxahani waa kooxo argagixis ah magaca waxay sitaan beesha Isaaq bay sitaan laakiin waa Isaaq laakiin nabadiida oo argagixis ah dagaalkii markaa uu dheeraaday dagaal culus baa dhacay dhimashadu 60 bay ku dhowday xagga Isaaq liil booliska rag badan kama dhiman sida la sheegay dhaawac waa jira waxa jira maxaabiis badan oo la qabtay waxa jira hub fara badan oo kotorbaan ah oo kooxaha khawaarijta ay wateen ee nabadiidka waxa kale oo la hayaa gaadiid fara badan oo ay leeyihiin jabhada argagixisada Islam isku soo wado halkaasi dagaalka waxa qayb ka ahaa oo ciidamada marka laga yimaado kooxaha nabadiidka ee horumarka iyo xasiloonida ee dowlad deegaanka ka soo horjeeda waxa ka barbar dagaalamayay jabhada khawaarijta argagixisada Islam dadbeen dagaalkii galabta ayaa la soo afsharay ciidanka liil booliska ayaa isu kala bixiyay dhammaan fariisimihii ay ka soo duuleen kooxaha nabadiidka waxaana ay la wareegeen deegaanada kala ah Dacwaley Kashishe ilaa iyo Goosay dhammaan waxa gacanta ku haya ciidanka liil booliska waxa kale oo jira kooxaha nabadiidka marka laga yimaado iyo kooxaha jabhada argagixisada Islam waxa ka barbar dagaalamay beelihii oo sida Sacad Muuse oo loo xaqiijiyo rag badan maanta ay kaga dhinteen ciidagala dagaalka ku jiray Arab cid ka hadhay ma jirto dagaalkuna wuxuu ku bilowday inay weeraraan oo weerar argagixisa ay ku fuliyaan checkpoint ay ku sugnaan ciidamada dowlad deegaanka nasiib wanaag dhammaan waa la soo afjaray howlgalkaasi gacanta ayaa lagu dhigay raggii hogaaminayay waxa weeye waliba la sheeqaar badanay waxa weeye ay ka socdeen rag lagu soo tababaray jilib oo markaasi dagaalka laftigiisu qayb ka yahay ninkii oo jiray sunne oo ahaa mid kamid hogaamiyaasha argagixisada ku sugan jilib ciidankaasi waa ay guuleysteen liil boolisku dhammaanna waa ay soo afjareen kooxaha nabadiidka waxa arkay markaa dad badan oo qoliyii Isaaq oo aad u qeylinay oo lawana lagu soo duulay daarood baa lagu soo duulay horta meesha daarood tagay ama daarood waxa weeye halkaasi daarood ka reer Isaaq baa xataa wada joogay ogaadeen waxa jooga nimanka reer Cali reer Guuleed fiq cigaal
nimankaasi waxa isqabtay isaaqi halka ku sugnaa cidagala dheh waxa weeye habar awal dheh hadii la kuuro yahay waliba Sacad Muuse iyo Arab baa horta halkaas isku hayay deegaanka dagaalo badan baana oo halkaas ka dhacay dhamaan dagaaladaasina waa laga adkaaday dhamaan sababta weeye dhulka masaafada la isu jiro gurmada ay kala helayaan tirada populationka intaba waxa way aad iyo aad bay u kala duwan yihiin intaas waa xog weeye haddii marka aragtid isaaq waxa uu daarad baa lagu soo duulay isaaq waxa weeye daarad waa soo kayso raacay aakhira laga xalay abud baa la galay abud baa la galay waxa ka dhiganta jug culus ba gaadhay markay jugta culus ay gaadho ay dhahaan ku waashan daarad war daaro isma yaqaan war daaro waa qoomiyad qabiil waa ka tagay daaroodka waxa weeye hadii la kuurayahay jifi daaroodku dagaalamaya jifi isaaqo la ku wareer yaro dhibtooda dareemo weeye isaaq qaylinayo la daarood baa sukay tagay way xanuunsadeen jabba gaar runtii maanta waa laga sheegay waxa weeye weerar argagaxiso ah ay ku qaadeen ciidanka booliska oo war ma qabtaa laakiin maxay caawa ka faa'iideen xabiistiina waa la hayaa hubkiina waa la hayaa dhamaan gacanta ayaa lagu hayaa waxaad dhageysataan kuwan horta marka koowaad maxaabiistii 8 ku dhawaad maxaabiista gacanta laga hayaa ciidanka booliska gacanta ku dhigay oo u jeedaan iyadoo la daabulay qaar badan dokumentiya laga helay oo kooxaha khawaarijta xog fiicanna waa laga helay dabcan booliska waxay dheen waa ogaadeen oo waa daarood way horta mid ogaada badan baad ogaadeen u yeerateen ogaadeen booliska maanta gacantiisa way gaadhay idinku khawaarijta oo nabadiida ka xaabiya muuqaalkan ila dhageysta waa hubkii qanimadii laga qabtay shacabku anu waxaan u cadeynayaa waad artaan afar jeer baa isku day noocan oo kala ah waxa weeyaan yaa oo faldambiyada deegaanka la soo geliyay oo gacanta ku dhignay saado ma taqaanay xuduud uga soo gubtay ee deegaanka la soo geliyay adiga rabbiga rasaas ka bareeyay ku raaxayso rinka kaaraha ogaadeen baa dalbatay iyo booliska ka xabxaabi ogaadeenku waa qoomiyad weeye daaroodku marka laga yimaado waa qoomiyad weeye madaxdiini weeye waxa weeye hadii la guurayahay hadday iska ogaadeen kale reer isaaq hadday suuqi raacaan wallahi billahi tullahi halkan ay door ba ku noolaan jiray wala oranayaa waxa weeye u hogaansaba dowladdiina dowlad deegaanka kooxihii nabadiidka wata ee argagixisada ahaa hadda in la yidhi cashiriyo laba abur leedi geliyo aakhira leedi ka xiro cidiisa ma jirto ogaadeen kanaad ka cabas ogaadeen isma yaqaan ogaado qoomiyad weeye NFD buu joogaa DDS buu joogaa Soomaaliya buu joogaa dhamaan meel kasta madax buu ka yahay ogaadeen ku cabsi weeye federaalka Soomaaliya madax ka DDS ga madax ka NFD warkooda haka socota idooro ha socotaan ha isku fogeynina bahasha halka ninkii aad hooyada ku dheereen weeye awoogay Siciid Qanax waxaan ka hayaa idoorku midaan shido iyo midaan shideeyaa shan hadaan ka diro shan waa anoo neef shido u qalay way idoorow meel walba dabas kaga shubteen waxay la tahay maanta xilliga dhamaan lahaydeen weeye waxilligii laydiya maanta ma wiilasha cabsiga ahaa ee reer cali reer guuleed waliba fiqcigaal miyaa sooladooda ku laasheen in dhibaato idinku filan caawa waxa weeye hadii la ku farqad ku haysataan ciidamada booliisku waxay ku sugan ilaa beled gobolde ilaa deegaanka la yiraahdo dacwalay ilaa waxa weeye kashishe ilaa waxa weeye goosay dhulkaas ciidanka booliiska jooga wixii joogay ee kooxaha nabadidka laga shakiyana gacanta lagu wada dhigay meydkiini iyo dhaawiciini meel walba dadsan maanta isqaadqad waxa la shibiri baa leeyahay maalin bay dab qaadeen maalinkan buulkeedii gubtay maanta waxa weerar argagaxiso qaadeen oo nimo tababaran oo carbisan oo weli sida u limiqsanaya oo booliisa oo cabsiya oo wiilasha dhaadheeray waageen ka haya miyaa sooladooda ku laasheen maxay ka raacay aakhira leedka xidho wallah waxa meesha baroorta hargeysa ka baxaysa oo wadiyaadees intaas weeye booliska ciidamada waan hambaliyeenayaa tallaabada kooxaha nabadiidka laga qaaday waxaan leenahay guuleysta geesiyaadkiin lagu dhaarto waxa ilaaliya nabadgelyada cid kasta oo lidi kuwa nabadgelyada dowlad deegaanka
tallaabo sharciga waafaqsan ka qaada. waxaan rajeynayaa gaadiidka SNF laga qabtay maxaabiistana inaad TV soo bandhigtaan. waa meesha waa la isku soo dhuuntay weeye. nimankii argagixisada meesha maraya, nimankii jilib kusoo tababartay, waa wajiga waxa la iska dhigaya, waxa leeyahay waa arab, waa idagalo, waa sacad musaalileyn, laakiin maaha, waa kooxo nabadiidka weeye. marka horena waa uga adkeedeen, haddana waa kalsooni waa ku qabnaa mar kale darbaxa ku dhufanaysaan. intaas waa intaas. magaalada Ceerigaabo xaaladeedu waa wis weeye. magaalada dadkii ku noolaa waa ka qaxeen, labada dhinacba ciidamo badan baa hareeraha ka fadhiya. waxayse muuqataa in la isu diyaar garoobayo, magaaladana lagu kala adkaan doono. Ceerigaabo nin walba awoodiisa iyo muruqiisa wax u goyso ayuu goosanayaa. xaqiiq weeye. waxa weeye annaga haddaan nahay hartiga halkaa degan ee deegaankoodii iyo halkaas caawa waxa dul fadhiya, go-aankaygu waxa weeye Ceerigaabo inaan ku kala adkaano idoor, inaan idoor ku kala adkaano. waa intaas weeye. ninkii roon, ninkii awood leh, ninkii quwad leh, ninkii waxa weeye haddii la ku jira iyo dhaqaale iyo ninkii leh baa Ceerigaabo ku haraya. dagaalna waa bilow, hore waxa weeye isku turtur ayay dagaal, hadda waa bilow weeye. xaggeena meel fiican bay maraysaa hawshu, intaa u dhaafi maayo. oo qodob Cabdi Cadami oo nin ogaadeena oo Jibraahiila oo bahgari wuxuu ka siiyay Jibraahiil oo dadka degan waxa weeye Ceerigaabo oo ay dhaleen qoryaha idoorku. dagaaladii maalintooda dhacay waxa laga sheegay inay ku dileen suuqa sare. ninkaasi hadda jijigu yaalaa, xabadda madaxa fadhida. ninkan waa sawirka u jeedin lugu gacanna oroli barales bay noqotay. waxaa ila soo xiriiray eheladiisii. ninkaasi xaaladiisa aad baa looga deerinayaa. waxaan rajeynayaa kolay dowlad deegaanka jijigu ku sugan yahay in si wanaagsan loo daweeyo. ninkaasi waxay ku dileen waa daarood baa tahay weeye. ninka ogaadeen waxay ku dileen waa daarood baa tahay. isaguna iskama garan sababtu halka ugu sugan, anu garan maayo, iyadoo tolkiye dadkiis dareerayaan sabab xaafadaysa ugu sii sugnaado ma garan karo. waxa la sheegay inuu laba gabdhoodna ka qabay, abtina ay u haayeen, xabadna ay la dhacay markii dambe. ninkaas dhaawaciisa jijiga lagula tacaalayaa. waxa weeye nimankan seedina ma yaqaanaan. cali seedigu waa ku sigay, seediga waa ku sigay, waanu ku qaawin seediga kuwaas xitaa kama xishoon seedigood. waxaan rabaa inaan la hadlo, waan fariin u diro ogaadeenka degan agaarka gaashaamo. fariin baan rabaa in laga gaarsiiyo oo bilaa caleegaad gaarsiisaan. ogaadeenow weliba nimanka reer Cabdille Ibraahim ee halkaa ku sugan, waxaan leeyahay nimayow wiilka reer Caynaashe ee gaashaamo ka soo gurmaday, ee DDS ka soo gurmaday, ee maanta igula dagaalamaya Ceerigaabo, ee infantrygiisa iyo gurmadkiisu Ceerigaabo ka dagaalamayo, masaafada u dhaxaysan aad garanaysid, walaalo adigu ka ark. waxaasuna wax la qaadan karaa ma aha. nimankani kana dhulbahantaa, kana warsangeliya, kana ogaadeena ma kala shaqla. waa isaaq wey. waxaa dhici karta xabadda uu ku dhaawacmay ninka haddan hore u carabaabay inuu yahay xabad ninka yimaadee la kuuraya gaashaamo. sabab aad u daawataan oo aad shaaha iyo fuudka isla cabtaan, waxaasi wax la qaadan kara maaha. wiilka dhulbahante maanta wuxuu ka diriraya 4 goobood. waa Qorolugud, waa Balyaciye, waa haddii la kuurayo waa Salinta ilaa Og, waa Fadhiye Yar, waa Ceerigaabo. intaasoo difaac waxa ku jira maanta waa wiilashii qalasyada ahaa, waa wiilashii dhulbahante wey. haddaba iyadoo intaasoo difaac ah iyo intaasoo goobood aan dirir colaadeed kaga jiro, wiilka ogaadeen ee ku sugan gaashaamo iyo agagaarkeeda ee daawada gurmadka halkaa ka soo baxaya, maxaa lagu tilmaami karaa? war waxaasi wada dhalasho maaha, tolnimo kuma nihin. ogaadeenoo fadhiga ka kaca. waliba nimanka reer Cabdille, wiilasha Maxamed Subayr ee laandheeraha ah, iyo nimanka haddii la kuuran yahay Ibraahim, waxaan leeyahay at least wax kale idinkaga rabno. waxaan rabnaa wadada inaa xidhaan. hadda ka hor fariinteedu waa kasoo jawaabteen, hawl wanaagsan baad qabateen, weli laakiin waxbaa soo baxbaxaya. waxaan leeyahay dagaalku waa saf dheer weeye, waa dheeraan doonaa. halkaa wadada waa inaa xidhaan. waxaan kaliya aan idiin soo diray fariinta waa inaa wadada xidhaan oo wadada istaajisaan oo wadada joojisaan.
oo wiil door oo ka soo gurman kara DDS gaashaamo yaanu jir intaas waa hiilo weeye taasna waa qodob weeye nimanka sabanka ku nool ee jamhuuriyadda ku nool Soomaaliya ee Hargeysa iyo Burco iyo dhulkaas isaaqa degan in foodkood cabbo waan dhirbaaxa ku dhufano anaga ma taqaanaan hawshu way inoo kala qaybsan tahay nin walba shaqadiisa qabsado absolutely nimanka ogaadeen mana fariinta u dirayaa waan la yaabay ninka reer Caynaashe gaashaamo iga imaanaya in ogaadeen ay daris yihiin daways weydii maxaa se waxa walday waa in adeerka baa laga arkay way waxaan leeyahay maanta maligi war ogaadeen ciidamo soo dira maligi laakiin waxaan leeyahay gurmadka xira waan hal gaari waanu ka bixi karin way liibi booliska ku daadiyay meel walba halkaas wadadaas yaana hadal dambe yaana ka maqal anna waxaad igu halaysaan afarta goobood aan carabaabada wiilashii dhul bahante ee qalasadaha inay guulo ka soo hoyaan horena way ugu soo hoyeen haddana waa ka soo hoynayaan insha Allah ta'ala aad iyo aad waa isaga diyaar heerkaygu dir colaadeed waxaan leeyahay arinta ogaadeenkana inay gaadho ayaan rajeynaya insha Allah ta'ala waa in wiilka hadii la kuuriyay gaashaamo ka imaanaya ayuu halka ku istaago way intaas aan leeyahay insha Allah fariintan gaarsiiya aad iyo aad baan salaam iyo khayr baan idin